midowga dhalinta degmada Xarra tirsan gobolka Salal iyagoo ay horkacayaan mas'uuliyiinta ugu sarreeya degmadan iyo saakada jiro u dhagax dhigay marin halbowlo ahaa isku socodka gaadiidka iyo soo galida degmada dhagax dhig kadib waxa halkaas ka hadlay afayeenka ururka la magac baxay Xilqaan meeshaasi waa dhooqo mar walba gawaadhi ba ku rumay ayaan walba gaadhi waa laga jiidaa ama gaadhi weyn ama gaadhi yar wariyaan xilliga roobku daayana koodon bay gashaa طاحين كوالد وجلسة هل كنا وردوقو بيها جلسة أيام البلد كلهم مركز تصور واحد كستو وفاهنا وحقق يستو نحقق يبقشوا وضعنا إن شاء الله وأنا بقول لي يرى يو دولتي هوسة يدقان كمسكاشين إن شاء الله وحايبه هوس بيتك وحلو بهي عليس سيدة إن لسارو أو هوس لوق عليس marka wixii ay qiimo leedahay in muwaadiniinta waxaan leeyahay warsaad uga qayb qaadanaysaan la idinka shaqeynay inaan wadada midda dheer go'an oo dhibaato weyn ku haysa gaari anagoo hadda u diyaar garownay dawlad hoose iyo odayaal iyo bulshada dhammaan deegaanka maanta oo ay tahay bishii 18 bishii 9 2020 marka waxaan leenahay Cabdirashiid oo aniga arkay badaliniga sheekeyn maayo inta gaariga ku dhacday ku rugmatay oo aniga arkay Cabdirashiid aniga sheekeyn maayo marka waxaan leenahay cidna loo sheegi maayo wax qabadka laga soo wada qayb galo bulshada ayaa magaca dirawalinta gaadiidleyda ee marta wadadan dhibaatada ay nagu haysa Cabdirashiid kulay waa la ogyahay inta baabuurka ku rugmateen waa la ogaa kii ugu dambeeyay iska rogo baaheed baan filayaa oo sidee MCH ka caawimaad Soomaaliya marka horta halkan aad bay dib weyn baan ku qabnaa oo waayo waxaan barnaa 6 kiiloomitir oo dooxa ama way naga gashaa hadii kale noo martay waqtiyada qaar roob gudaayo oo badan saacado badan baan cadalanahay marka dhalinyarta iyo bulshada reer Xarrada iyo dhammaan dawladda aad baan ugu mahad celinaynaa anaguna waan ka qayb qaadanaynaa haddaan nahay gaadiidleydii wadada mareysay waayo bulshada iyo dhammaan dadka lacagtana marinba sida loo yahay lacagta qofka bini'aadanka soo marinba marka uu roobku xaaladeedu meeshan adkaatay waxa inay iska kaashadaan go'aansaday bulshada beeraleyda dhammaan cidda xariiradii agagaarkeeda degan dhammaanteed noocay dooniba ahaadaan ayaa iska kaashaday inay dhisaan halkaa oo ay dhisaan marka cid kasta oo xariirad danaynaysa ama sadaqatul jaariya waa sadaqatul jaariya cidii halkaa wax gashatay de waxa weeyaan waa wadadii la marayay ee cid kasta ay maraysay oo go'doona weeyaan marka cid kasta oo danaynaysa inay dar Ilaahay wax ula baxdo waxaan ka codsanaynaa inay hawsha ka qayb gasho ayaan ka codsanaynaa dhammaan reer xariirad iyo deegaankeeda dhammaanna waxaan ku dhiiri gelinaynaa in loo diyaar garoobo hawsha si degdeg ah wax looga qabto ambishaa ku dhamaysto waxa ugu dambeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Xarrada Cabdilaahi Xasan Warsame Xaaji isagoo booriyay wax qabadka balaaran ee dhalinta la magac baxday Xilqaan wadada Oqaasha iyo ciidamada dhamaantii waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka aynu joognay waa meel Xarrada u jirta 1 kiiloomitir iyo badh xaga bariga wadadii Boormawey nima sidoo u yaqaano ama waa geedkii Cabdirashiid meeshaas oo arkaysan sida ay noqotay iyo sida ay tahay iyo dhibaatada gawaaridu ay ku qabaan iyo rafaadka ka haysta waxaan go'aansanay markaa annagoo iskaashanayna dawladii hoose beeraleyda iyo dhalinyarada magaalada iyo dhammaan bulshada reer Xarrada inaan meeshaas ka sameeyno maanta aan dhagax dhigaynaa insha Allah dhagax dhiguna ma aha kii la dhigay laga tagay bisha 10aad shaqadeedu way dhamaystirmaysaa haduu Ilaahay oo Ilaahay gaarsiiyo sidaan ku rajaynaynaa marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo xariirad rajo ka qabta meeshan waa sadaqa weey waa dariiqa weey waxaad ku darsatay adigu ku anfacaya aakhiriya diyo ku anfacaya marka waxaan leenahay dadka ganacsatada reer Xariirad uqaasha reer Xariirad dadka deegaanka baadiyaha nin walba wixii aad ku soo darsan karto ku soo darso gacmana wada jib wax ku gooyaan anagu dawlad hoose ahaan wadawtiin tamartayada way naga soo badantahay meeshan haddayna wax nala qaban waxba qaban kari mayno inaan wax nala qaban diyaar baan nahay